مسؤولينta wasaaradda maaliyadda ee ugu horeeyay wasiirkii hore oo ka shaqeeyay munaasabadan halkaan maanta aynu isugu nimid inaan xilka kula kala wareegno wasiir xasan shire iyo anigu waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan intii soo ajiibtay munaasabadan ka soo qayb galkeeda waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo kadib muddo 4 sano oo bila dhiman ah oo aan hogaaminayay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta oo aan shalay wareejiyay inaan sii wado wasaaradda maaliyadda Puntland oo aan halkaan maanta xilkeeda kula wareegay waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan ummadda reer Puntland meel kasta ay joogaan oo mar walba garab iyo gaashaan u ah dowladnimadan iyo taamiyeelideeda iyo horsocodkeeda waxaan kaloo rabaa inaan kalmad mahad celina iraahdo wasiirka hadda halkan xilka wareejinaya mudane xasan shiraab gaal iyo wasiiradii iyo howlwadeenadii iyo mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda shaqadii quruxda badnayd iyo guulihii la taaban karay ee la gaaray muddadii hadda ay hogaaminayeen wasaaraddan ee halkan laga xusay iyo intaan la xusin aad iyo aad buu mahadsan rumahantii waxqabadkaas la gaaray sida wasiirku wax xusayna lama gaareen haddaysan ahayn siyaasadda xukuumadda Puntland oo hogaaminaya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni in dalkan wax laga qabto waxaan kaloo rabaa inaan kalmad ka iraahdo mas'uuliyadda halkan maanta aan kula wareegayo oo ah wasaaradda maaliyadda waxaynu wada ogsoonahay wasaaradda maaliyaddu waa hay'ad ka mid ah hay'adaha kale ee dowladda waa wasaarad ka mid ah wasaaradaha kale ee dowladda hadday aan lahayd wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha qorsheynta ay wasaara bay ka mid tahay wasaaraduna waajibaadka u kala duwan mas'uuliyiinta qabanaysana hal waday soo maraan oo markii la magacaabo inay dhaartaan oo hal dhaar oo isla mid ah ku dhaartaan hal xasaanad oo isla midana ay ka helaan baarlamaanka wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay laba waajibaadka koowaad oo ah inay mas'uul ka tahay dalka dhaqaalihiisa haddii aysan wasaaraddu hogaamin oo aysan wax ka qaban dalka dhaqaalihiisa jihayn ma gaari kardho mas'uuliyaadka kale oo ay leedahay mas'uuliyadda ku xigtana waxa weeye inay dhaqaalihii fariistay ee dalka ay ka samayso dakhli kharashkiina markaa ka bixiso waxaynu wada ogsoonahay arrintaas inay tahay arrin isku wada xiran haddaan dalka dhaqaalihiisu uusan fadhiyin ma jirayso ganacsi iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo ay wasaaraddu ama dowladdu ay canshuur ka qaado haddaan canshuur la helinna dakhli ma soo xaroonayo haddaan dakhli soo xaroonna kharash ma baxay marka sidaasay isugu xiran yihiin mas-uuliyadda runtii awalla wasaaraddan ay soo wado ka shaqaynaysay ee waajibaadka wasaaradda haatan aan rabno inaan horey usii wadno intaa ayay ku qotami doontaa haddii allaydo waxaan rabaa haddii ilaahaymo shaqadii wanaagsanayd ee halkan laga xusay ayaan ka shaqayn doonaa inaan tiimka iyo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kale wasaaradda kala shaqeeyo sidii hore ugu sii socon lahay
inaan kala shaqeeyo wixii dhimanaa dhammaystirkooda, inaan kala shaqeeyo wixii hindisayaal iyo aragtiyo horay loogu sii wadi karo sida wasiir xasanba oo halkan ka sheegay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahayna ku guuleeyo. anigu haddii ilaahaymo siyaasadda aan rabo inaan ku hogaamiyo wasaaradda maaliyadda, run ahaantiina aan kusoo hogaaminayay wasaaradda arrimaha gudaha, waxay leedahay mabaadi' asaasiya. mabda'a koowaad waxa weeye cadaalad wey. in dakhliga marka la sameynayo dadka laga qaadayo loo cadaalad sameeyo, oo cid walba maqaamka ay kaga jidho iyo miisaanka kaga jidho ay hesho, oo aysan dalku u dhaxayn ama wasaaradda maaliyadda shaqadeedu aysan u dhaxayn aragtiyaha kapitaalistaha iyo aragtiyaha soshalistaha dhexdooda, laakiin la helo cadaalad sinaan oo si cadaalada dadkaas haddii lahaydmo dakhliga laga qaadayo, canshuurta laga qaadayo ay u wada helaan, oo aysan dhicin in shirkado waaweyn oo dhaqaalaha dalkan qayb ahaan gacanta ku haya ay iyagu monopolize gareeyaan jihada ay rabaan inay dhaqaalaha dalka u jiheeyaan, halka dadka masaakiintaana uu culaysku ku dhacahay. marka cadaaladdaas waxay ka bilaabanaysaa halkaas, waxay ku soo dhammaanaysaa aniga iyo mas-uuliyiinta kale iyo shaqaalaha wasaaradda oo haddii lahayn ma wada shaqayn doono. qodobka labaad ee mabda'a waxa weeye isla xisaabtankaasna waa midda keliya oo aan ku hubin karno inaynu horumar gaaro. in isla xisaabtanku aniga iga bilowdo, mas-uuliyiinta kale wasaaradda isla hogaaminayna ku xigsato, shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda ku xigsato, dadka laga qaadayo dakhligana ay ku xigto, kuwa la siinayo laftigoodana lala xisaabtamo oo kharashaadku uu ku baxay. haddii dadkii laga soo qaadayay culays lagu saaro, qaarkood loo xirxiro, qaarkood ay dhici karto in xabad lagu dhufto, marka la bixinayana aan isla xisaabtan uusan jirin, halkaas waxay dib ugu noqonaysaa qodobkii koowaad oo cadaaladda ah. waxaan haddii lahayd ma ka shaqayn doonaa intii tabartaya in la isla xisaabtamo. isla xisaabtanku ma noqonayo oo keliya dadka, laakiin systemiska laftigooda in lala xisaabtamo haddii aan leedahay. waxaan rabaa inaan xuso arrinta oo aan uga tago, maadaama maanta xil wareejin tahay, wixii dambe dib baan ka dhigan doonaa. marka laga hadlayo dhaqaalaha, tusaale reer miyi baan soo qaadanayaayo islaam baa waxaa la yidhi inta subag lulatay bay qumbo ku shubatay. qumbaha waxaa la yidhaahdaa jeegga, hadda dadkaan cusub jeeg bay yaqaanin bay la tahay, waagii hore reer miyiga laga isticmaali jiray. qumbihii bay buuxsatay, waxay ku tala gashay inay kaydka u dhigatay xilliga jiilaalka, laakiin haddana waa ka maarmi weyda. waxay istiri suusan subaguna kaaga dhammaan, adna aad dhadhankiisa u heshi. subax walba cadaygeeda inta budlisay bay dadhaayo xoogaa muudsataa. waxay isdhahaysay subaguna meeshiisu joogayaa, aduguna dhadhankiisaas ku sii waar. laakiin waagii dambey dabool ka qaada, mise subagba meesha kuma jiro, ilain cadaygii bay ku dhammaysatay. waxaan rabaa haddii mas-uuliyadda dhinaca horumarka oo halkan quruxda badnayd oo laga sheekeynayay la rabo inuu sii socdo lana sii ballaariyo, haddii la rabo hay-adaha dowladdu inay shaqada la rabo inay qabtaan dalka u qabtaan ay qabtaan, haddii la rabo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay xuquuqdooda helaan, waa inaan la isugu imaan wax la yidhaahdo halaf jaqlaysi ama korguraysi haddii lahayd. markii xilli walba la gaaro, hay-ad walba ay qorshaheeda haddii lahayd ma la timaado, wixii noo soo baxayna aynu u wada jirna haddii lahayd. intaas waxaan u leeyahay, waxaan ogahay inkastoo maaliyaddu la mid tahay hay-ad kastoo kale wasaaradeed ama dowladeed, haddana dufankaas yaallo uu ka hadlayay sheekh maxamuud daraadiis in socotadu badanayso. marka
أما سيدي مرة بدل مدحوينها سعيد عبد الله الدين وشيء أما مرة كوران كرجوري سنة إن واحد بيننا السوق معنا أما وادي سنة إن أيوه مركي حلقة هذا لقارا قفل بحوض السهلة يهدي لهين هذه أدبوا مع سنتين مرة غادي مرصد حال ويدين ما علينا إياه إن شاء الله وحرتشينا يا إنه وذقوا ليسنه أصحاب تيم كيوري وسير الدولة وإن كتجينا أيجنا وحنا لنا هرتينا خير معاني نعاودوني